waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan kooxda xidigaha geeska oo aan wada shaqayn noo bilaabantay inkastoo saddex sano wada shaqayn jirnay muddo dheer. maxaa xilligan keenay inaad ku soo biirtaan kooxda xidigaha geeska waagaag daawadayaal halkan oo ah hudheelka Daily Dose waxa ku soo dhamaatay xaflad kooxda xidigaha geesku ay soo dhaweyn ugu sameeyeen fanaaniin doora oo ka mid yahay hobalka caanka ee qamar sugaani uu ku soo biiriyay qamar ku soo dhawoon Cable TV hore waan ku dhowahay Hon Cable TV caawa waxa halkan uga dhacday munaasabad aad u qurux badan dhammaan xidigaha fankuna ay isugu yimaadeen iyo kooxda xidigaha geeska waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan kooxda xidigaha geeska oo aan wada shaqayn noo bilaabantay inkastoo saddex sano wada shaqayn jirnay muddo dheer maxay ahaydey waxaan sidoo kale u mahad celinayaa TV-gan oo maxay ahaydey astaantiisa aan aad caan u tahay in badan aan soo wada shaqaynay iyadii mulkiilaheeda iyo family-gaba iyo bahdii saxaafadda oo adigu ka mid tahay aad baan ugu mahad naqayaa inaad caawa nagala soo qayb gashaan TV-ga Hon Cable runtii waa TV-yada ugu jecelahay buu ka mid yahay والسلام يا ملكي أصحابتي أدب ما سنتها قبل السوداني maxaa xilligan keenay inaad ku soo biirtaan kooxda xidigaha geeska waxa keentay baan oran karaa markaad adigu kaliya shaqaynayso iyo marka koox ahaan la wada shaqaynayo way kala qurux badan tahay inaanu qaranka u sii wada shaqayno baanu isla garan marka saasan bay ku tahay kooxdan waxa caan ku ahayd si qaranka iyo horumarka iyo dhiirigelinta iyo wadajirka bulshada laga shaqeynay ma la oran karaa imika waxa u jeeysatay inay halkii ka sii bilowdo halkii baa laga sii wadayaa hawlaha qaranka maxay ahaydey anaguna sidoo kale qamarna uu ku soo biiro oo la shaqeynayna insha Allah aad waa